تصالها بالفيري إلهي مركو سودتي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مجاريسان سمفلك يا خير كوين إلى وحا حولها تعشهين عاد وحكب حسان هانتدا تعشهين مركي آيات داسي سودكتي أنس بن مالك وحو يري أبو طلحة وحو أها مقالة مدينة أردن أنصار نينكا وحو لها بدنبوها حوله سنة وحو أقوتش على بيرتي بيرحا لأورنشري بيرحا بيرحا واللغوين كلا دوان دور مقعيدة وحوية ضبط كذا دور نوعي كنت معنا بيرتا بيرحا اللي يلاهده أي حوله سنة أقوتش على بل ماشي كنت على استراتيجي غافيري مساجد كان النبي جاي سوقع بالسنة عليه الصلاة والسلام وماشي مقالة السنتر كذا أهي مركز النبي يقول مركو بحوه ومساجد كبحوا بيرتا قليج عيل باكويا لآدو بيا معان نبي يقول بيها سكعبي ترى عليه الصلاة والسلام بير آدو ويني بضن وهنتدي سوقتش عليها بأهد ماشي بقعة أقول قالي سنقول كان أقول الله مساجد كان النبي كان كسر جدا عليه الصلاة والسلام آيات داس مركو مغلي أيو مركي بدقاتي والنبي قال صلى الله عليه وسلم بقى يا رسول الله إن الله تعالى يقول إلهي وحو ليه في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ساسا إلهي سودتي وإن أحب أموالي إلي بيرحاء هانتida idana waxaan ugu jeclahay ilaahay siiyay beertaas wa innaha sadaqatun lillah ilaahay dartiis baan u sadaqaystay arju birraha wa dhukraha 'inda Allah beerta birrigeeda khayrkeeda iyo kaydkeeda iyo dakhligeeda dambe ilaahay agtiisaan ka rajaynay oo kaga ajal xisaabsanay fadhaha ya rasuul Allah haythu shi'ta rasuulka ilaahay oo adigu maamul meel alla meesha u garatidna dhig oo ku maamul meel alla meesha u aragtid dhig markaas nabigu uga marxaati kacay sallallahu alayhi wasallam niyada wanaagsan bakhin luqada kale waxa weeye bakh oo qaada la reebo bakhin waa sax waa kalimatu ta'ajjub kalimad la yaab la weey macna arinka la yaab kale ayaa nabigu bakhin ku soo dhaweynay ذلك مال رابح ومال ربحي وصاحبكيسي او فائدي او درجه سره ku gaaray way nabigu laba jeer ugu celiye kaleey salaatu wasalaam markuu yiri maalkaagi waad ku guuleysatay waana maal ilaahay agtiisa darajo sare aad uga gaartay waana ribix xaqiiqadii la rabay aad ku gaartay ayaa nabigu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa inni ara waxaan arkayaa anugu ra'yi ahaan an taj'alaha fil aqrabin beertaas maadaama waqaf ay tahay oo aad sadaqaysatay qaraabada inaad u yeeshid oo qaraabada adiga dadka kala ah aad u qaybisid markaas oo qaraabadii u yeer markaas u qaybi kuwa qaraabo fag odaga toddobaad ay iskugu yimaadaan sida Hassan bin Thabit oo kale ayuu wax ka sii odaga toddobaad iskugu yimaadaan ayuu beertii u qaybshay kulligeed waa qaybshay soo ma jeed xadiidkaas laba macne oo waaweyn baa ku sugan macaani badan buu leeyahay laba waaweyn baa ku sugan marka koobaad qofku inuu isku dayo waxa hantidu ugu jecel yahay inuu ku dhiirado inuu gooyo wax kamida ilaahay dartii u bixiyo arinka labaad waxa markuu bixinahayo inuu tashi ka sameeyo oo meesha dadka ahlu khayrka ah oo wanaaga iyo khayrka oo ku tuhmahayo inuu kala tashado meeshii uu dhigi lahaa ee uunan intuu bixiyo meel asaga la qurxoon iska dhiga hadhowta aan la dhihin maya meeshaas faa'iido ma lahayn bal dambi baa ka xasilaya meesha geeysa xoolaha ee inuu dadka ahlu khayrka ahlu cilmiga kala tashado sadaqadan meesha ku haboon oo la dhigo midda kale inuu qaraabadiisa u qaybiyo fadliga ay leedahay arinka isaga ah wala ogaad nabiga kaleey salaatu wasalaam
وحجر من تصدق بعدل تمرة هل تمر وحد ما قفك صدقيسته من كسب طيب كسب حلال أو طيب حق يسنا كصدقيسته والله لا يقبل إلا طيبا إلهي ما أقبل وحن طيب أهين فإن الله يتقبلها بيمينه إلهي باكو قدومية أدونك اللب حي صدقها طيب كأ يمين تيسو مدك تيسابا إلهي كو قدومية فيربيها لصاحبها مركز إلهي أبر ثم يربيها لصاحبها كبعد ما إلهي أبر بارنا يا هلكي حبه أو صدقيستي كما يربي أحدكم فلوه سيدا متكين أبر باريو وأكريو المها يركع أو فرسك أودالي سيدا أدياريو أكرينا يأبر بارنا يو نيفك جيلة علمه سوكله أي إلهي أبر بارنا يا سبحانه وتعالى حتى تكون مثل الجبل إلى أن تيوينات بورتو كلا أي نقط بورتو كلا أي لأكات أي إلهي أبر بارنا ووحية أو حلالة أو طيبة وإلهي درت يا أصدق قيستي أي هيرك إلهي كو قرسيني يحيى بن معاذ باوحو ليه شري ما أعرف حبة تزن الجبال إلا من الصدقة ما قرنا يبو ليه شري حبض مرأة وإنتي ويناتي بور لأكاتي وبورها أقول أنت إلا بابك صدقة إن لقاه لما يعني مالك لأقرن معي مالك لك قرن قفك متصدقة أو مالك يسبحيا مالنت قيامها وحا إيمانا ينكي عالمك علمك يسيب الله إيمانا وحا إيمانا ينكي مجاهدك جهادك والله إيمانا وحا إيمانا ينكي صائمك أو مناصونك والله إيمانا وحا إيمانا ينكي متصدقة أو وحلا بحجر انتاس أجرك هلين بقادني كان جهادك كتير جهادك وجوك المية مالك سكب حيي جهادك باللو ذاكسر نين كان عالم كابو علم يقول نشرنا هيبو مدارستي يدروستي يضدك طلبة العلم هاي كتبه وحلو برنا يبو كم مال قلي علمك أجرك باللو ذاكسر كي صائم كها أو صومنا أيو أفريي أجرك باللو ذاكسر وحي كديراد أسوي لي ماذا جهاد حقه وكل شهيدي أهي وحي علمي هو لي هو ديراد لكن أنت سمرك يمادان متصدق مالكي سأنت أديك سدي أجر كودي بالله مشاركين يا ولو ذاك سنة عبد العزيز ابن عميرة حديه شري الصلاة تبلغك نصف طريق صلاة تكنيسا وحي كجارسينيسا وضدك لبركيد والصوم يبلغك باب الملك صوم كنا وحي كجارسينيا يريد بقرك والصدقة تدخلك عليه صدقتنا يريد جدها كوجلينيس بقرك كوجلينيس صومك الصلاة دي وكسر دواتي صدقتنا جدها كوجش سو ما تشوف الإمام ابن القيم وحير صدقة قفك واللوجة حجاب بلايو أي لوجة حجاب ابن أبي الجعد نوحي 70 بابا من السوق تضباط الباب أو حمان أي قفك صدقة اللوجة حجاب تضباط إردود أو كفر ملها أو حمان أو مصيبين أي إلهي صدقة اللوجة حجابي بل الإمام ابن القيم وحيري حتى من الظالم أو الكافر صدقته هذي كتما دقفك قال كأ يقفك الظالم كأ فإن الله يدفع عنه بها كثيرا من الشرور والمصائب إلهي وحي أقد دفاعيا قال كاس يا الظالم كاس صدقته أي لبحين الدنيا مصائب بدن يدباتوي بدن أي إلهي أقد دفاعي صدقته سيداس inaynu nafteena ku tarbiyayno oo aynu barno oo bukhliga la dagaalano oo markaan xoog leenahay caafimaadka leenahay aan bixino waa inaan isbarnaa oo dabiicad aynu ahaato wayna ku didaan haday tahay masaakiin la qoodinayo
hadday tahay masaajid la dhisay hadday tahay madaarista quraanka hadday tahay qaraabada la kaalmaynayo duruuqda khayrka oo ilaahay uu badiyay gacantaadana maanta ay wax ku jiraan ku bixi ilaahay baa ku dhiibay bixi buu ku yiri waa ku siinayaan haddaad haysid intaas oo hantiya laga haya ka waran xagga alle iska bixi ajarkeeda qaado meesha ka banee midaan xiran ayaa ku soo gudbaysa waa balaqaadka ilaahay ku qaado bixi hal lagu siiyo ballan waa lagu siinayaa bedelkeeda bixi fursadaas qaaliga aan ka faa'iideysan yaanan dayicin yaanan la sugin maalkan markuu hebel yeesho wiilkaagu markuu yeesho ama mid kala dhasho uu yeesho mid kale qaraabo aatiin uu yeesho wax maamulaya tasarruf aadan ku lahayn maalkaaga ilaahay ku caabud intii aan ghayrkaa ilaahay ku caabudin adigu ilaahay ku caabudo ugu dhawow intaan ghayrkaa ilaahay ku caabudin ugu dhawaan haddaa isleedahay intaa koolkoolisid hay ilmo fiican oo baariyaalahan leeyahay ayagaan la dardaarmay oo aan ka sugayaa ogow iskuma hubtid waxaad isku hubtid ma adigii baa naftaada uga bakhiilo u quuri waayey inuu hadhowta asagu yiraahdo aabba hadduu la baxaayo fursad buu haystay asagaa tabco ku dhididay waa la bixi waayey maalka inoo qaybiye qofkii aabiis waxa la baxaya asaga u taalo badana intaan aragnay waa qaacida noocaas kuwa dhulkii aabahood ay u waqfeen tay waqfeen oo go'aansadeen oo waqfeen markay waqfeen ka bacdi ayagu intay dib ugu baahdeen intay ka laabteen waqafkii gatay oo iibsaday kuwa inta marqaatiyaal loo sameeyo waalidkii dhalay u sameeyeen marqaatiyaal u yeeleen oo ay markay marqaatiyaal u yeeleen oo aynan wali kala qorin oo aynan waqaf ka dhiginin ayay waalidkii markuu dhintay u yiraahdeen ma waxba kama jirto waqafkii waalidka waxba kama jirto ma uu asagu dokumentiga wareejiyo qoray ma waxba kama jirto aqall shay waxa uu yeeshaa naftaada waxaaga wax kamid ah oo go'an oo adiga sadaqa jaariya ku noqda oo haddaba waxa weeyaan marqaatiyaal iyo qoraal ku leh oo aan hadhowta la isku qabsanin oo qof walba uu ogaado samayso inta haysatay adigu iskaga nacfi oo hayso laakiin hadhowto wax aan dhaxal gelin ha ku ahaan oo banaan u bax adduunyada inta noo sheegay fursada haysta qaaliga nabigu wuxuu weydiiyay sallallahu alayhi wasallam maalkiisa yaa ka jecel maalka qeyrkiisa markaasay saxaabadu yiraahdeen qof walba maalkiisu jecel yahay maalka qofka kala haysta maxaan ku falay kayga ka jecel maalkaaga waa midka hormarsatid baa nabigu sallallahu alayhi wasallam midka aad ka tagtidna waa midka saaxiibka uu leeyahay oo laga dhaxlay haddaba hadday yahay maalkaagu midka aad hormarsanaysid adigu aad leedahay hormarso ilaahay hayna hanuuniyo subhanahu wa ta'ala اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين